السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر oo sidii caadada inoo ahayd maantana halka kan idin ka soo gudbin doona barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa afka iyo dhaqanka Soomaalida. waxaan jecelahay insha Allah tacaala maanta waxaan idin hayaa maahmaaha doora bal waxaan idin bilaabi doonaa maanta iyo maahmaahaha aan idin hayo. maahmaahda koobaad ee aan idin soo qabanayo waxa la yiraahdaa inta aanan horta maahmaahda idin bilaabin waxaan jecelahay sababtii ay ku baxday ama ay ku timid maahmaahdani iyo madashii ay ku baxday iyo cidii isugu maahmaahday bal horta inaan idin soo horeysiyo. waxa la yiraahdaa hadiyo jeer dhaqanka Soomaalida sidaynu wada ogsoonahay waxa lagu yaqaanaa waliba gaar ahaan waayadii hore ama casrigii ka horeeyay inaga waqtigeenan hadda aynu joogno. marka ay haasaawayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ninku gabadha way iska tijaabin jiray gabadhuna ninka way iska tijaabin jirtay. qof waliba qofka kale wuxuu ka qaadi jiray tijaabo. qof waliba qofka kale wuxuu eegi jiray ninku wuxuu eegi jiray gabadhu waxay eegi jirtay ninka aftahamadiisa raganimadiisa iyo geesinimadiisa. ninkuna wuxuu eegi jiray gabadha gaarinimadeeda aftahamadeeda garashadeeda dhaqashadeeda iyo gobonnimada qoyska ay ka soo jeedo oo la hidaraaci jiray. waxyaabo fara badan ama astaamo fara badan baa lagu xulan jiray gabadha wanaagsan oo gaar ahaan uu raggu ku xulan jiray. waxa la yiri heel ciyaareed baa la isugu yimid habeenkaas oo markaas ninkii wuxuu damcay in uu inantii didsado oo uu kabaha la dul maro oo uu buuriga ka dambasaysto. yarayada maxaa loola jeedaa waa ila fahmaysaan baan u malaynayaa. waxaan rabaa dhalinyarada yaryar ee cusub inaan bara af Soomaaliga kiisa buurbuuran insha Allah tacaala ayaan rabaa. wuxuu damcay baan u jeedaa ninkaasi in uu gabadha ka badiyo oo uu ay noqdaan Arsenal iyo Manchester. markaad qofka waxaan u garanay inuu sheegayso waa inaad u barbar dhigtaa wuxuu garanayo. waaya dabeeta wuxuu yiri ninkii odayga ahaa si uu inantii u didsado oo uu uga naxsado oo uu ciyaarta uga badiyo ama heesta ayaa wuxuu yiri saddex baanan kala garan saddex. inantu inan dhuuban bay ahayd oo dheer oo soohan oo ma garanaysaa aad degashaantiyo timatidcana oo aad u qurux badan laakiin hilib baanay lahaynoo inan aad u soohan oo waxay ahayd aad u dhuuban. markaasaa wuxuu yiri saddex baanan kala garan saddex ayaanan kala garan inaad soorgad leedahay inaad weli sindheer tahay iyo inaad qoys sabool tahay. inan yahay saddex baanan kuu kala garan buur inaad soorgad leedahay inaad weli sindheer tahay iyo inaad qoys sabool tahay. talow saddexdaa keebaa tahay waa saddex nusqaamood oo kala duwan buu ku sheegay. saddex nusqaamood oo duwan oo kala duwan oo saddexduba ay yihiin dhaliil u soo jeedinaya gabadha oo uu ku shaabadaynayo oo uu rabo inaanay hadal oo uu ka naxsado oo aanay heesin oonay u jawaabin ayuu ninku ku talagalay. weerar cir iyo dhula buu gabadha ku soo qaaday. allah af loo waayay baa ba'ay. af loo waayay ayaa ba'ay bay tiri Soomaalidu. markuu intaa ku yiri muxuu haddaba ninku uga jeeday maahmaahdan muxuu yahay macnaheedu. wuxuu leeyahay inan yahay saddex arrimood baanan kuu kala garan. inaad soorgad leedahay dhuubnidaadan iyo noocan aad tahay ee saloogan bari kaa muuqata yacni hore iyo gadaal wax dhinacna kaaga baxsani ma jiro. had iyo jeer waxaa lagu yaqaanaa dee ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka uu dumarka u abuuray waxa weeye iyo qaabka ay rag u abuuran yihiin runtii dee way kala duwan yihiin. haddana waa aadamo magacii bay wadaagayaan. gabadhu markay halkaa muuqa kaaga soo baxdaa ama humaageeda waad garanaysaa markaba humaagaasi inuu gabadh yahay. humaaga ninkuna markuu halkaa kaaga soo baxo waad garanaysaa markaba humaagaasi inuu nin yahay. calaamadaha ku yaalla jidhkooda ama xagga hore ha ahaato ama xagga dambe ha ahaatee kuwaasaana caddaynaya. dabeetana wuxuu u jeedaa ninkani ma soorgad baad leedahay talow sidan maxaa kuu dhuubay. soorgadku waxa weeye qofka cunto kasta oo uu cunaa aanay waxba u tarin ee aan ku naaxin ee aan ku cayilin. sidan maxaa kuu dhuubay ma soorgad baad leedahoo cuntadu waxba kuuma tartaba mise weli sindheer baa tahay buu yiriyo. sindheertu waxaa la yidhaahdaa ilaa cirbaha waa wada caloolo af Soomaaliga. yacni waxaa loo jeedaa aad bay u cilwan yihiin waxba ma deeqaan
sindheertu waa markuu ilmuhu 10 jir dhaafo 15 jirkii qaangaarkana aanu wali gaarin ayaa la yiraahdaa waa sindheer mise wali sindheer baa tahay buur ma soorgad baad leedahay mise sindheer baa tahay mise qoys saboolaa talow ka dhalato qoys cayda oo aan iska furin oo aan iska faydin ayaad ka dhalato gaaja ku dubatay oo sidan kuu galay talow maxaa sidan kuu galay saasuu ku yiri inantii way qaadatay hadalkii dabeeta waxay tiri aniguna saddex baanan kuu kala garanayow anna saddex ayaan kuu kala garan waayay beelguna inaad tahay waxaan kuu kala garan waayay saddex beelguna inaad tahay inaad baara leedahay iyo inaad tahay badhnaagood caybay ku miistay iyadu ilaa isagaa doonte abaalkiisay ka waraabisay weerarkii cirka ahaa ayuu ku soo qaaday iyo dhulkaba ahaa madaxay u dhigtay difaac biray kala hortagtay alla ninka maxaa gaaray waxay tiri anna saddex baanan kuu kala garan beelguna inaad tahay beelguna dadku waa gun iyo gub guntu waa dadka xun dadnimo male dulqaad male deeq male dad la socod male diin male dadka noocaasa waxaa la yiraahdaa waa gun ama dadku waa gobo waa dadka dhaqanka fiican ee maxaan ku raad dulqaadka badan ee deeqda badan ee furfuran ee dad la socod kale ee waa dadka waxa la yiraahdaa waa gob baa la yiraahdaa kuwaana adigu reerkaad ka soo jeedaabay tiriniyo waxaan u kala garan waayay inaad ka dhalatay reer guna kow inaad wali baaradii leedahayo nin weyno maxaan ku raad heel ciyaareed la isugu yimid ayaa lagu leeyahay baaraad leedahay maxaa loo jeedaa marka nacas baa tahay u qarinaysa nacas ayaa tahay bay u qarinaysa laba saddex waxa kaloon kuu kala garan waayay bay tiri niyahow yaa inaad beelguna inaad tahay inaad baara leedahay iyo inaad tahay badhnaagood malaha nin dhammaysaba ma tiid waxaaga sidan u hadlaya ee hablaha sidan u caayaya ee aniga dhuubnida sidan igu caayaya malaha dhammaysba ma tihid oo waxaa tahay nin haafayn soo lama garanayo haaf gabadha iyo haaf nina oo ma jiraa kaasi waxaan xasuustaa ninaanu saaxiib nahay oo caraba waddanka jazaa'ir u dhashay oo aanu meel ka wada shaqayn jirnay magaalada baarlin ayaa maalmaha ka mid a waanu sheekaysanay dabeetana wuxuu igu yidhi waxaanu ka sheekaysanay dee sheekooyin fara badan markaa meesha aanu ka shaqaynanay waxaa nagala shaqaynayay dadyow fara badan oo kala duwan oo ajanabiya ayaanu dee kaga shaqaynanay oo muslim iyo kristan bala laakiin kristan u badan iyo qaaraan diinba haysanba markaasaa mid baa nagu soo baxay oo na salaamay oo dee nagu yidhi maalin wanaagsanoo saan oolana ku nidhi maalin wanaagsanoo miyaad garanaysay buu igu yidhi kan maasaan ku yidhi dee niyo mee waan arkaa unoo shaqaalaheenu ka mid yahay muxuu ahaa markaasuu igu yidhi waa miya wasita maasaan ku yidhi waa miya wasita waa maxay miya wasita muxuu yahay saaxib wuxuu yidhi miya wasita waxaanu u naqaanaa buu yidhi annagu qoladayadaasi buu yidhi miya wasitaha waxaanu u naqaanaa ninka qowmuluudka ahee nin naf mooda ninka nin wax ka daya imika qurbaha si aad ogtihiin iyo wadamadan reer galbeedka waxa aad iyo aad ugu badan ragga isqaba iyo dumarka isqaba aad bay ugu badan yihiin aad meel kasta oo waddanka jarmalkaanu anagu degannahay yacni waxa weeye jaarkaagaad arkaysaa qaar xataa meel calankiiyo meel kasta ka bibanayaad arkaysaa yacni wax la qiyaasi karo maaha xawli bay ku socdaan weliba siday u soo kordhayaan deedna wuxuu igu yidhi miya wasita baanu u naqaanaa buu yidhi annagu kaasoo waa afgarasho annaguna aanu isla naqaana buu qoladayadaa reer jazaa'ir oo waxaanu dhahnaa ninku markuu yahay nin wuxu doonta ama isaga ha la qaba ama isagu waxa qabe labada nin ama isagaa la qaba ama isagaa wax qaba oo nin kala qaba ama isagu nin kala qaba marka yacni waxa weeye gabadhaasi dee waxaynu leenahay ninkaasi fiican bay isaga difaacday waxay taasi kuu caddaynaysaa ama mahmahdaasi kuu caddaynaysaa aftahamada haweenka soomaalida iyo maskax furnaantooda waxaan jecelahay inaan idiin raaciyo sheeko yar oo kooban sheeko yar oo inkasta oo aan filayo inuu waqtigii inaga soo galay insha allahu tacaala waxaan ku soo dari doonaa sheekada sheekada
kliibka kan ka dambeeya ayaan insha allahu ku soo dari doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan dambe oo xiise leh annagoo nabada iyo idinkoo nabada insha allah.